wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse iyo wafdu hogaaminayo ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Wafdiga wasiirka waxaa ka mid ahaa wasiirada amniga ee dowlad goboleedyada. Wasiirka amniga Puntland ayaa soo dhaweeyay wafdiga wasiirka. afarlaatan bishu tahay waxaa booqasho noogu yimi wasiiradii amniga uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalka waxa la socda wasiiradii dowlad goboleedyada toodii badneed sababaha ay u yimaadeen oo ah shir aanu ku leenahay magaalada Garowe markan waa markii ay Puntland yimaadeen waxaan leenahay ku soo dhawaada Puntland oo amniya oo nabada oo qurux badan waa idinku soo dhaweynaynaa dhulkiinii baa timaadeen meel fog ma idin aadin ku soo dhawaada haddana waxaan rajaynaynaa muddo adigu maalina berito inuu noo furmi doono shirkii amniga oo aanu lahayn ka wada tashiga amniga guud ee dalka Soomaaliya iyo individually dowlad goboleedyada iyagoo aanu warbixin kala qaadan doono waxyaabihii amniga nooga fulay waxyaabaha aanu u baahanahay inaanu qabanno oo hadeer noo taagan iyo ajendooyinka aanu rabno inaanu ka hadalno mustaqbalka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse ayaa sheegay inay u yimaadeen Garowe shir uga furmaya dowladda federaalka wasaaraddeeda amniga gudaha iyo wasaaradaha amniga ee dowlad goboleedyada. nala socda wasiirka amniga Puntland dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan u mahad celinayaa shacabka reer Puntland iyo dhammaan hay'adaha amniga iyo wasiirka amniga Puntland iyo wasiiradii la socday eelboorka nagu soo dhaweeyay sida wanaagsaneed ee noo soo dhaweeyeen anigii wafdigii ila socday ee ahaa wasiirada amniga maamul goboleedyada dhammaantood waxaan u nimi waxay tahay in uu noo qabsoomo shirkii amniga maamul goboleedyada iyo wasaaradda amniga gudaha ee qaranka arintaasi waxay sabab u tahay in aan wada tashanno aan wax isku biirino amniga dalkoo dhan aan wada suganno dowladda xukuumadda nabad iyo nolol aniga hadda aan matalayo oo aan ka socdo iyo wasiirada nala socdoba waxa naga go'an waxay tahay in aan amniga Soomaaliya meel uga soo wada jeesano baahida aan u qabno amni meel walba gaara waan ogsoonahay waxaana arintaas qayb ka ah wasaaradda amniga Puntland oo shirkan iyada martigelisay aan rabno shirkan inuu biri noo furmo wax badanna aanu ka niqaashi doono ka wada hadli doono waxaan ogsoonahay waxaan hadda safarka u soo galnay inay tahay dardargelinta hay'adaha amniga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaan rabnaa in isku xirka uu mar walba uu joogto ahaado ka warqabka mar walba uu joogto ahaado waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala tashiga amniga iyo waxaan ka wada hadli doonaba inaan isku wada afgaran doono kadibna waxa weeye shacabka Soomaaliyeed iyo caalamka ay nala ogaan doonaan waxaana sabab u noqonayna waxay tahay in aan Soomaaliya u horseedno horumar haddii aan amnigeeda aan wada sugno. shirkan ammaanka Soomaaliya looga hadlayo ayaa berito ka furmaya magaalada Garowe waxaana lagu soo qaadi doonaa sidii la isaga kaashan lahaa arrimaha ammaanka Soomaaliya guud ahaan.